kulankan oo laga hadlayo caqabadaha iyo khataraha ku geedaaman isku tashiga bulshada iyo horumarka gobolka Sanaag ayaa waxa lagu qabtay magaalada Baran kulanka oo soo agaasitay xarunta hadaf cilmi baaris iyo horumarinta ayaa waxa ka soo qayb galay xildhibaano wasiiro gudoomiyaha xarunta ganacsiga maamulka heer gobol iyo midka degmada Baran iyo bulshada qaybaheeda kala duwan inta uu kulanku socday waxa laga sheegay in horumarka deegaanka uu u baahan yahay in hoggaanka siyaasadeed iyo midka bulsho ay noqdaan kuwa heegana oo ka feejigan khataraha hagardaamin kara mashaariicda socota iyo horumarinta deegaanka uu ku talaabsaday una qareemi kara in xal laga gaaro baahiyaha kale ee taagan qaar kamid ah mas'uuliyiinta goobta ka hadlay waxa hadaladoodii kamid ahaa horumarka hadda inuu gaarnay lagu faraadayo dardaarmaya waa taas oo cid kasta oo khalkhal gelinaysa يعني bulshadu ay iyagu inkiraan ala aqal oo ay ka hadlaan marka bulshadu waxa la rabaa sida ay fagaaraha inoogu diyaariyaan hadaf center in ay iyagu hadlaan oo adduunka meel horumar lagu gaaro ma jiro kala dambeynta iyo ixtiraamka iyo wadajirka ayaa wuxuu keenaa in qofku uu garaaci karo albaabkii saxda ahayd sidoo uu horumari karnaa waxa ugu horeeya inaan yeelano hoggaan iyo nidaam iyo kala dambeyn siyaasiyiinta deegaanka iyo qaybaha kale bulshada waxa ka saaran mas'uuliyad weyn xaaladda deegaanku ku sugan yahay iyo siyaasadaha hadda ku soo wajahan oo aad u taabanaya waxa weeye mustaqbalka iyo masiirka iyo aayaha bulshada tan in ay waxa weeye u dug yeeshaan wax badan iska dhaxan nidaam hal nidaam inuu jiro oo aanay dhowr nidaam meesha ka jirin oo dhowrka nidaam way sardiyayaan haddii wacyigelin la waayo dadka bulshada wacyigeedu uu hooseeyo waa caqabad way iska jirtay marxalad laga soo gudbayo hortaagnaa laakiin waxaan u baahanahay wada tashi iyo wax weyn iyo sidii loogu talaabsan lahaa la isku wacyigelin lahaa bulshooy waa inaynu dareenno waxayna ka maqan waa inaynu dawladda ku dhawaano dawladdu waa shaqaale adeegayaal ah waxyaalaha horumarka inoo diido waxa kamid ah oo anigu aan ugu horeeyo dhalinyarada aqoonyahanka gobolka oo aan rajo kala hayn una soo jeedin in gobolkooda u qaaraamaan gobolkooda aqoontii iyo waxa ay resource-ka ay barteen dib ugu celiyaan inay bulshadii wacyi geliyaan dawladnimada ka dhalataa in maartay bulshadu inay wax qabsan karto ku dhiirato waa bogaadinayna bulshadu sida fiican ay maartay uga qayb qaadato horumarka deegaanka waxaa jira qabyooyin badan oo inoo yaala oo inagayna sugaya maxamed cabdi warbaahinta qaranka magaalada